gudidii dhexdhexaadinta ka dhaxwaday xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka oo warbaahinta la hadashay waxay faahfaahin ka bixiyeen kulamo ay la yeesheen xisbiyada mucaaridka iyo madaxweynaha Soomaaliland Maxamed Axmed Faarax oo ku hadlay afka gudida isxilqaantay waxa uu cadeeyay in madaxweynaha iyo xisbiyada mucaaridku ay aqbaleen dhexdhexaadintooda isla markaana ay kalsooni siiyeen isagoo arimahani ka hadlay waxa hadaladiisii kamid ahaa gudigani aad aragtaan qaarna ila fadhiyaan qaarna iga dambeeyaan waa guddi isxilqaantay oo ka kooban culimo iyo ganacsato waxaa isu keenay lixajeclo iyo damqasho ay u leeyihiin dadka iyo dalka waa guddi guddidu waxay aaminsan tahay inay xal ka gaari karto khilaafka ka dhaxeeya dawladda iyo axsaabta mucaaridka waxna ka qaban karaan dorhaad waxaanu u tagnay hoggaanka labada xusbi ee mucaaridka ah ee wadani iyo ucud waxaanu ka codsannay inayna siiyaan kalsooni aanu ku gallo khilaafka dhexdooda ah iyaga iyo dawladda u dhaxeeya wayna siiyeen kalsoonidaas shalay waxaanu u tagnay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay la fadhiyaan madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka dakhliga iyo wasiirka maaliyadda waxaanu ka codsannay kalsooni aanu ku dhaxgallo khilaafkaas dawladda iyo mucaaridka ka dhex taagan waana siiyay madaxweynuhu kalsoonidaas waxa kaloo madaxweynaha aanu ka codsannay inuu sii daayo 3 xubnood ee ka xidhnaa xusbiga wadani madaxweynuhu waa naga aqbalay waanu amray in la sii daayo maanta waxaa shacbiga Soomaaliland iyo cid kasta oo danaynaysa nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliland u sheegaynaa inaanu khilaafkaas ka dhaxeeya dawladda iyo xisbiyada mucaaridka aanu gacanta ku hayno kana nasanayn ilaa aanu meel ka gaadhno waxaanu ka codsanaynaa shacbiga Soomaaliland inay ilaaliyaan xasiloonida iyo nabadgelyada dalka waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda iyo labada xisbi ee mucaaradka ah inay ka fogaadaan hadal iyo ficil kasta oo waxyeeli kara dhexdhexaadinta aanu ku jirno allah mahad leh halkaasa hadalkaygu ku dhan yahay Cabdiraxiin Muuli Ismaaciil shabakada wararka Ilays News magaalada Hargeysa.